وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan iyo maalin wanaagsan qof walba meesha uu isagu inaga dhageysanayo dunida dacaladeeda barnaamijkan sidii hore ilaa galabta loo sii xayeysiinaya ama Facebook iyo internetada ku arkayseen waxaan wareysi dheer ku kala sheekaysan doonaa gudoomiyihii hore ee gobolka bari ee maamulka Puntland mudane Cabdisamed Maxamed Galan hadeerna ah gudoomiyaha kacdoonka Puntland ama gudoomiyaha mucaaradka Puntland qof walba sidoo dhigo waraysigan waxaan ku qaadaynaa madasha 60 oo ah goob siyaasadda Soomaalida inta badan lagu falanqeeyo oo lagu soo xidho dad siyaasadda Soomaalida saameyn fara badan ku leh sidii aan horeba idinku ballan qaadnay waraysigii khadka telefoonka waxay noogu jira gudoomiyaha oo jecelahay marka hore inaad la soo dhaweysaan codkiisana aad maqli doontaan gudoomiye Galan waad maqlaysaa madasha 60 oo ay ku jiraan dadweyne fara badan oo Soomaaliya gaar ahaan oo badan bajaaliyada adoo aad ka dhalatay oo gobolada Puntland iyo dadka Soomaalida kale waxaan ku leenahay marka hore madasha 60 ku soo dhawow aad iyo aad baan u salaamayaa waana mahadsantihiin ona dhow waa hagaag gudoomiye su'aalaheena inuu jecelahay inuu waqtigeena aad uga faa'iideysano anagoo kaaga mahad celinayna casuumadda magaca qabsay inaan kugu wareysano madasha 60 su'aasha ugu horeysa guud aan jecelahay adoo waliba soo gaagaabanayna ku weydiiyo waxay tahay xaaladda guud ee Puntland xilligan lagu jiro adoo aad soo gaabinaya siday tahay xaaladda guud ee Puntland bismillah alxamdulillah marka ugu horeysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waan salaamayaa si gaarana waxaan u salaamayaa madasha 60 iyo dhageystayaasha hadda ku jira oo online-ka ah dhammaantood waan salaamayaa xaaladda guud ee Soomaaliya waa laga wada warhayaa xilli kala guur oo maanta waxaa la joogaa uu dhammaanayo systemkii xukuumaddii hore ee mudane xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay diyaargarowbaa waxaa loogu jiraa in loo guuro teeran cusub oo hor leh Soomaaliya arrintaas saameynteeday ku leedahay colaadaa jira deegaanada qeybtood ka socda deegaanada tan aanu joogno Puntland waxay ka mid tahay deegaanada Soomaalida ah oo diyaargarowga ugu jirta sidii si wanaagsan oo ma garanaysaa dhamaystiran loogu guuri lahaa nidaam cusub isla markaana kama marna dhibaatooyinka iyo caqabadaha Soomaaliya ka jira sida colaadaha oo kale waxaa la socotaan berihii ugu dambeeyay colaadaha waxay ka jireen gobolka Mudug oo ay wada degan yihiin beelo walaalo ah oo kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug dhibaato badan iyo khasaaro fara badan oo halkaa ka dhacay waxaan oran karaa marka xaalad dhib badan oo u baahan taxadar iyo in caqliga sariimka iyo maskaxda ay shaqeyso baa lagu jiraa marka xaaladaha guud baan malaynayaa inay haddeer ugu dambeeyeen xogihii ugu dambeeyay Soomaaliya ay hadda ku sugan tahay aad baad mahadsan tahay su-aasha aan rabo inaan dib kuugu yar celiyo adiga taariikhdaada ama intii aad ahayd gudoomiyaha gobolka bari baan rabaa inaan wax yar ku xusuusiyo haddii caawa la yidhaahdo Cabdisamed Maxamed Galan waa gudoomiyaha mucaaradka Puntland horena uu ahaan jiray gudoomiyaha gobolka bari reer bariga inta mucaaradnimada aan la gaarin ba maxay kugu xusuusan karayaan dadka deegaanada gobolka bari kasoo jeeda wax qabada oo horumar leh ama wax dhibaato ah oo maamulkaaga khalad ka yimi oo lagu xusuusan karaya ma garanaysaa ina aad u mahadsan tahay meelo badan iyo goobo badan baan kaga sheekeeyay taariikhihii aan soo maray intii aan shaqaynayay oo aan gudoomiyaha gobolka bari ahaa teeramkii Cabdiraxmaan Faroole oo aan inta badan waqtigiisii la qaatay iyo teeramkan Cabdiweli oo aan qaybtii hore la qaatay waxaan oran karaa waxa ugu badan iyo shaqada ugu badan oo maanta lagu xasuusan karo xilligii aan shaqaynayo waxaa kamid ah waqtigii aan kusoo beegnay wuxuu ahaa waqti arrimo badan iyo caqabado badan ay ka jireen gobolka bari waxaa kamid ahaa dagaalo sokeeye oo colaado ah oo ragaadiyey gobolka oo beelo wada dhashay oo gobolka degan uu dhex yaalay waxaa kaloo kamid ahaa burcadbadeedii oo dhib badan ku haysay deegaanka kan iyo geyiga kan waxaa kaloo sidoo kale jirtay argagixisada nimanka la yidhaahdo al-shabaabka oo dhib badan ku hayay deegaanka waxaa kaloo kamid ahaa tahriibta oo iyadana dhib badan ay ka jirtay oo Soomaali badan ma garanaysaa sabab ay ugu noqotay inay ka tallaabaan dhulka gobolka bari laga xukumo dhibaato fara badanna ay ugu iman jirtay waxaan oran karaa marka qaybna waxaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu iwaafajiyey oo aan sabab ugu noqday totaliba inaan mas-uulino oo ay meesha ka baxaan sida colaadihii sokeeye oo u dhexeeya beelaha gobolka arrintaa waa ku guuraysanay in aanu soo afjarno colaadaha
arrintii burcadana meel fiican baanu gaarsiinay waxaan oran karaa waxaanu gaarsiinay numberkii ugu yaraa intii burcadda ahayd intii ay puntland jirtay numberkii ugu hooseeyay baanu gaarsiinay qaybo badan oo kamid a oo soo qabanay ma garanaysaa falal badan oo isku dayeen waa aanu fashilanay argagixisada al-shabaabkana waa laga wada warhayay dhibaato badan iyo dagaalo fara badan baanu wada marnay waxaan oran karnaa wixii ay la danacsanaayeen iyo dhagartii ay la danacsanaayeen dadka kan iyo gobolka kan bari ilaahay subxana watacaala anagu sabab nooga dhigay intoodii badnaa inaanu ka hortagno khasaaro badan way noo geysteen oo rag badan bay naga laayeen oo aniga oo guddoomiyaha gobolka 2-3 jeer bay i weerareen baabuurteeda miinay ku xireen guriga way igu soo weerareen staafkaygii iyo ciidankaygii qayb badan bay iga laayeen saas way tahay haddana marnaba nagama aysan baajin ama nagama aysan hakin dagaalkii aanu kula jiray ilaa aanu ugu tagnay guryihii ay deganaayeen ilaa aanu rag iyo gabdho wixii la shaqeynaya aanu gacanta kusoo dhignay buurihii ay joogeen aanu ugu talagalnay oo aan dagaalka mararka qaarkood fool anigu dagaalka uga qayb geli jiray anigu guddoomiyaha gobolka ah baan mararka qaarkood buuraha ay ciidanku joogaan intaan ugu tagno ciidanka si aanu u dhiirigelino anoo hubkayga iyo qoryahayga wata dagaalka wax ka geli jiray oo aanu nimanka halkaa kula diriri jiray marka taana guul fiican baanu ka gaarnay nimankii la oran jiray tahriibta ka shaqaynayay dhibaato badan baanu nimankaa isla marnay akhirkiina waa kaga guulaysanay qalabkii ay isticmaali jireen saxiimadihii iyo doonyihii yaryaraa iyo gaadiidkii ay wax ku guri jireen gacantaanu kaga tabanay iyagii qayb badan oo kamid a waa soo xirxirnay waa ay yaraatay laakiin mar walba dhibaato iska taagan oo geeska africa oo dhan ka jirtay ahayd dadka kan iska soo yaacaya oo faraha badan oo kumanaanka ah mana aanan awoodi karin walaalaheena ethoopia ka imanayay oo number aada u fara badan ahaa mana aanan celin karin meelaan ku hayn karnayna ma ay jirin mararka qaarkood waxaa dhici jirta gobolka bari inay isku soo gaaraan dad ku dhow 10,000 oo qof oo ethoopia u dhashay oo dhammaantood raba inay tahriibaan xero lagu hayn karo male dib u daabilidoodu waa hawl badan tahay markaa dib u celisay dib haddana usoo noqonaya marka waxaanu aada ula diriray inaysan helin fursadda nimanka u facilitate garaynaya oo kaxaynaya oo doonyaha iyo gaadiidka isugu rakibaya oo deegaanka kasoo jeeday inaanu iyaga la diriro iyaga ciqaabno qalabkooda iyo agabkoodana aanu gacanta kaga dhigno shaqo badan baa nooga qabsoontay marka waxaan oran karaa waxyaabahaasa kamid a waxyaabihii ugu badnaa oo aanu kaga qayb qaadanay waxaa kaloo kamid a intii aan joogay gobolka magaalada boosaaso oo ahayd magaalo burburkii aada loo degay oo wadooyinkooda aysan fiicnayn oo hanti badan oo dawladdu ay lahayd oo dhulkii hantidiina guurtada ahaa dad shacaba ay aada u deganaayeen iyadoo baahi badan loo qabay in laga faaidaysto waxaanu ku guulaysanay ama waxaan oran karaa waxaan noqday gudoomiyihii ugu horeeyey hantidaa dadku wadaageen oo sida brivateka loo isticmaalayay intoodii badnaa inaan dib usoo celino wadooyin badan oo xirnaa inaanu furno guryo badan oo si khaldan lagu wada dhisay inaanu dumino tusaale ahaan dhulka hadda dekeda la rabay in lagu ballaariyo waxaan ka dumiyey guryo gaaraya 165 guri oo qaybtood ay dabaqya ahaayeen baanu ku guulaysanay iyadoo aan cidi ku dhiman cidi ku dhaawacnin inaanu dadkaa guryihii ka dumino ku qancino guryaha kan inay manaafacaadsadeen laakiin dhulka kan dhul la wadaaga u yahay dhulkii dekeda lagu ballaarin lahaana ay tahay mashaariicda haddeer dekeda la wado in la ballaariyo dhulkaa lagu ballaarinayo waa dhulkii aan anagu banaynay oo aanu ku guulaysanay waxaa jira qaybo badan oo marka arrimahaas oo midana waxaa kamid ahaa dadkii soo barakacay oo deegaanka yimid inaanu ku guulaysano inaanu dhul siino oo aanu dib u dhis u samayno oo aanu dadkaa aanu dib u dejino oo la walaalayno dadkii ay usoo barakaceen oo ay u yimaadeen arrimo badan marka oo waxaan oran karaa noo qabsoonay baa jira arrimo badan oo nagu adkaaday oo noo qabsooni waayo aanu isku daynayna waa ay jireen aad baad mahadsan tahay guddoomiye aad ba fiican tahay inaad xusuustaada dadku waxay kuga xusuusan karayaan adiga laftaada ay dadku kaa maqlaan waa hagaag waxaa jira marka la maqlo magaca galan guddoomiyihii hore ee gobolka bari muddo badan soo xukumayay lama soo shaqeeyey cabdiweli cali gaas iyo maamuladii ka horreeyeyba saameyn badan buu magaca ku leeyahay deegaanada soomaalida hadday noqoto dhinaca maamulka puntland oo dadka qaarkii ay kugu taageersan yihiin kacdoonka military ee aada weliba wado iyo siyaasadeedba koonfurta soomaaliya ama dowladda federaalka hadalhayn badan baad ku dhex leedahay dowladaha caalamka iyo dariskana hadalhayn badan baad ku leedahay su-aasha marka aan doonaya inaan ku weydiiyo maadaama magacaaga uu noqday magac fiday oo saameyn xoog la yeeshay marka galan la maqlo dadku waxay isweydiinayaan oo su-aal meesha ku jirtaa waxaad la soo shaqaysay dowladdii cabdiweli xiliyo gaaban baad la soo shaqaysay intii hore aad xilka haysay mar qura lagaama maqal inaad mucaarad tahay maalintii xilka lagaa qaaday iyo ayaamihii toddobaadadii ka dambeeyeyba waxaad bilowday inaad mucaarad noqotid waa maxay sababta ka dambaysa ma markii xilka lagaa qaaday baad mucaarad bilowday
mise waxyaaba hore aad afka ka sheegi kari waqtiga kuu saamaxada inaad ka hadashid? aad baa umahadsan tahay. intaanan su-aasha ka jawaabin waxaan rabaa su-aashii hore inaan raaciyo waxqabadka. waxaa kaloo kamid ahaayo aan marnaba aanan ilaawi karin gobolka bari waxa uu degmooyinkiisu u badnaayeen dhul remote area ah oo aan systemku gaari jirin, oo aan xukuumadda iyo dawladdu aysan tegi jirin. waxaanu ku guuleysanay dhulka inaanu tagno oo dadkii aanu la wadaagno noloshooda. degmooyinkii ku yaalay dhulkaas oo dhanna aanu golihii deegaanka aanu ka dhisno. waxaa kamid ahayd ufayn, waxaa kamid ahayd qandala, waxaa kamid ahayd balididin. waxay ahayd dhul aan la tegi jirin, gola deegaana weligood aan laga samayn, horena uga hirgelin. waxaanu ku guuleysanay intaanu gobolka joognay dhammaantood inaanu golayaal deegaan aanu ka samayno oo waxay kamid waxyaabihii noo qabsoomay. haddaan su-aashan dambe usoo noqdo, waa sax, waa su-aal la isweydiin karo, qof kastana maskaxdiisa kusoo dhici karta. gallan systemka markii uu ku jiray waxa uu ahaa nin muxaafid ah oo ma garanaysaa aan dawladda mucaaradin, oo dawladda ceebaheeda aan sheegin ama xukuumadda ceebaheeda aan sheegin. yaanan dawlad oran, xukuumadda ceebaheeda aan sheegin buu ahaa. maxaa keenay markii xilka laga qaaday gallan inuu mucaarad noqdo, ceebo badan oo qarsoonaana uu banaanka soo dhigo? jawaabtaas waa ay sahlan tahay, aad bay u sahlan tahay. marka ugu horeysa waxaan rabaa in xusuusta dib loo yaro celiyo oo aniga markii xilka layga qaaday waxaan wareejiyey, waxaa layga qaaday xilka 28 bishii May, waxaanan xilka wareejiyey 30 bisha May baan wareejiyey. 2 maalmood keliya baan waxaan ku diyaariyey xil wareejinta. waxaanan oran karaa aan isbasaanshe waxaan ahaa gudoomiyihii ugu xil wareejinta qurxoonaa. xaflad ballaaran oo bulshada qaybaheeda oo dhan ay kasoo qayb gashay baanu qabanay. waxaanu kusoo bandhignay wixii noo qabsoomay iyo waxa qabyada naga ah, annagoo maamulkii aanu xilka ku wareejinayna ka ballan qaadnay wax allaale wixii uu nooga baahdo inaanu la shaqeyno. si qurux badan baanu xilkii u wareejinay. kadibna anigu wadanka waa aan ka dhoofay 3 bishii June baan wadanka ka dhoofay. markaan xilka wareejiyey 3 casho kadib baan wadanka ka dhoofay. wadanka waa ka maqnaa, muddaan ka maqnaa. soo noqodkaygii aan wadanka kusoo noqday waxa ay noqotay January 3 baan waxaan kusoo noqday magaalada Boosaaso. shacabkaygii reer Boosaaso oo ahaa shacab kalsooni badan aan ka kasbaday, xiriir badan aanu yeelanay, waxay go-aansadeen inay isoo dhaweeyaan oo weliba ay iisoo dhaweeyaan sida ugu quruxda badan ee qof mas-uula loo soo dhaweeyo. taana waxaan oran karaa gudoomiyihii ugu horreeyay Puntland ee heer gudoomiye gobol gaarsiisan oo isagoo xilka ka degay marka uu wadanka kusoo noqday soo dhaweyn loo sameeyey baan ahaa. arrintaa colaad bay gelisay xukuumaddii Cabdiweli. soo dhaweyntii shacabku ay banaanka usoo baxeen oo xitaa shaqaalihii dawladda saraakiishu ay ku jireen banaanka taagnaayeen. arrintaa dhib badan bay abuurtay. Cabdiweli iyo xukuumaddiisana amar waxay ku bixiyeen soo dhaweyntaa in aan la samayn, layga joojiyo. meediyihii ii yimina waa la xirxiray, saraakiishii ii timina xilalkii baa laga wada qaaday. arrintaa waxay na gelisay aad iyo aad bay nooga caraysiisay. maxaa yeelay wax dembiyo aanu gallay ma aysan jirin. dadkana soo dhaweynaya waa dadkii aanu u shaqaynay, waa dadkii aanu u khidmayn jirnay, waa dadkii aanu iyaga dartood riskiyada iyo qaraxyadu noogu dhaceen. inayna soo dhaweeyaan xaq baanu ugu leenahay. wax dhibaatana maanaan wadin, mucaaradna maanaan ahayn, shido kalena maanaan wadin. hawsha waxaan oran karaa halkaasay ka bilaabatay. kadibna waxaan xilliga aan kusoo beegnay waxa uu ahaa xilli dadku ay kacsan yihiin oo xukuumaddii Cabdiweli dadku ay aad iyo aad uga tabanayeen waxqabad la-aan iyo cadaalad darro. gaar ahaan gobolka bari oo ahaa gobolkii anigu aan barasaadka ka ahaan jiray. odayaashoodii oo guddiya samaystay oo magacyo la baxay oo danwadaag iyo magacyo noocaas oo kale ah oo aada u kacsanna waa aan kusoo beegnay. arrintaa hadday dhacday oo soo dhaweyntii ay isku dayeen inay carqaladeeyeen laakiin ku guuleysan kari waayeen magaaladii oo dhan ay banaanka usoo baxday. soo dhaweyntii si qurux badan noogu dhacday. halkaasaa waxaa ka bilaabatay deegaankii aan ka degay magaalada Boosaaso inay shacabkii koox igu yimaadaan, simadii ii yimaadaan, dhaqankii, nabadoonadii, cuqaashii, gabdhihii, haweenkii, dhalinyaradii, saraakiishii, kulligood qayb ii tacsiyadaynaysa oo dhibaatada naloo geystay nooga tacsiyadaynaysa iyo qayb noo hambaliyeynaysa oo noogu hambaliyeynaysa rabitaanka shacabkuna rabaan iyo soo dhaweynta naloo sameeyey iyo dadku meeshay naga eegayaan. shirar badan baanu dadkii la gallay, aad baanu dadkii isu fahamay. waxaanu ku wada hadalnay dadkii xuquuqda faraha badan oo muuqata oo qaybtoodna horey u jirtay, qaybtoodna ay samaysmatay in la wada doono oo si silmiya lagu wada doono. Cabdiweli waa uu ka maqnaa
magaalada boosaaso waa uu ka maqnaa kismaayu jiray madaxweyne ku-xigeenkaa joogay madaxweyne ku-xigeenkaa ii yeeray wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad tooyada iigu timaadid aniga iyo 4 nin oo kalaa ugu tagnay anagoo 5 ah waa u waranay wuxuu yidhi xaaladda ka warramo xaaladda jirtaan uga warran dadku cabashadaasay qabaan waana wax la xallin karo annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu idinla shaqayno oo aanu idinla xallino annagoo aan xil doonin laakiin mas-uuliyaddii odaynimo ku shaqaynayna madaxweyne ku-xigeenka wuu isfahamay arrintaa wuu soo dhaweeyey madaxweynuhu markuu yimi mar labaad buu dib iigu yeeray subax maalintuu yimi habeennimadeedii buu ii yeeray wuxuu igu yidhi waxaan rabnaa inaanu kulanno noo imo anigii madaxweyne ku-xigeenkaa nahay keligii miyaa ay rabtaano keligaa baan ku rabnaa oo u tegay khilaafkii marka ugu horreeyay anigii cabdiyo halkaas ka bilowday habeenkaa uu isfahmi weynay waxaan kala hadlay dadku waxa ay ka cabanayaan iyo waxa jira cabdiweli marka arrintaa dhib bay ku noqotay khaladaad kale iyo fikrado khaldan iyo wax marka aniga aan ii muuqan baa isaga u muuqday hadalladu igula hadlay hadallo ma garanaysaa aan mas-uuliyadi ka muuqan bay ahay hadallo aada u taagtaagan baanu ku wada hadalay waxaanuna u sheegnay cabdiweli o haddaadan dadka rabitaankooda aadan oofin oo dadka rabitaankooda aadan ku shaqayn dee dadka kan xoog kuma haysatid dadka rabitaan bay kugu doorteen kalsooni bay kaala noqonayaan puntlandna miisaanka ugu badan puntland gobol kale waa gobolkana hadeer aad joogto hadday tiro tahay hadday dhaqaalo tahay hadday istraatiijiya tahay waa inaad mudnaan adkisa waxa khaldanna waa inaad saxdaa waxyaabaha khaldan qaybina waa kaa horreysa o systemka kaa horreeyaa khalday iyo kuwii kasii horreeyay qaybna adigaa khalday labadaba maanta adaa lagaa rabaa dadkii adaa madaxweyneha inaa u saxdo annaguna waxaanu diyaarnaa inaanu kula shaqayno kula saxno arrinta cabdiweli waa ka degi weyday waxay ku noqotay wax uu la fikeri waaye hadalla taagtaa ilaa aan isla gaadhnay meelaha lagaa soo diray waa garanaya koonfur baa ka timi xaggaasaa ka timi magaranaya hadallo aan magaranaysaa laayiq ahayn baa markaa meeshii ka dhacay kadibna waxaanu kusoo kala tagnay geedkaa gaari karto ka gooso iyo geedkaa gaari karto ka gooso cara iyo dagaal baanu kusoo kala tagnay anigu dhibba uma arag soo kala tagnay aanu 2-3 maalin habeen aanu kulanay haddii kasoo wareegatay gurigii aan ka deganaa magaalada boosaaso galab casara anoo shir ka baxay baa waxaa igu soo weeraray gaadiid madaxtooyada laga lahaa iyo gaadiid kale oo madaxtooyada ka amar qaadanayay oo xarumo kale oo ciidamada ay lahaayeen iyo ciidankii madaxtooyada oo ay hogaaminayaan ciidamadii madaxtooyada oo markaa ilaa 20 gaari oo technica ku dhow iyo ciidan 200 aan ka yarayn recent ka badnay anigana guriga waxaa ii joogay 4 wiil oo aniga staff ii ah baa ii joogay gaadiid baa yaalay gaadiidkii xilligaan anigu shaqaynayay anigu aan bareefad ahaan u lahaa oo technicada ahaa xerada guriga dhex yaalayn 2 gaari oo kamid a gaarina waxa uu la shaqaynayay ciidanka buurta oo al-shabaabka la dirira baan u daayay oo haddaan shaqada ka tegay kalama aana noqon waxaan ku yidhi halkiisa ha ka hawlgalo gaarina airportka boosaasuu ka shaqaynayay oo ciidamadii nimankii chineska ay kamanigii dhisayay uu staff gaara u ahaan jiray 2 gaari anaa shaksiyan iska lahaa shaqada haddaan ka baxayna waa u daayay waxaan ku idhi ha shaqeeyay baabuur ii kiraysan oo aan dhaqaalo ka qaatana ma aysan ahayn haddaan soo noqday gawaaridii waa ay burbureen lama dayactirin dhibaato badan baa ku dhacday waxaan codsaday 2 gaari in lay keeno oo guriga laygu keeno 2 gaari waa lay keenay way furfurnaayeen qoryihii saaraana dhulkay yaaleen waa laga shaqaynayay galabta haddiina lasoo weeraray dhibaato badan baa dhacday raggii ila joogay qaybna waa la laayay qaybna waa la qaqabtay gaadiidkii guriga yaalayna waa lagala baxay iyo hantidii guriga taalla gurigiina waa la burburiyey sawiradiisa iyo de kulli waa wada aragteen waa ka wada dhergsanteen wax kalifi karina ma aanan garan karin mana suuroobin inay aniga gacanta igu dhigaan oo ilaahay subxana watacaala baa mahaddaa iska lahaa kadibna waxay noqotay marka inaan gurigii ka baxo oo aan meel kale aan dego oo ciidan fara badan aan urursado ciidan aada u fara badan baa iigu yimi oo markaa gurmad ahaa halkaasaan degay halkaasaan habeenkii joogay maalintii labaad joogay habeenkii ku xigayna magaalada waxaan kaga soo baxay xaalada colaadeed baan kaga soo baxay ilaa iyo waktigaasaan soo gaarnay haddaan banaanka u baxay dad fara badan oo cabasho fara badan qabay oo meel ay u irdhabaan la-aa oo meel ay magaranaysaan ka hadlaan waayey oo cadaadis fara badan u haystay oo deegaanka oo dhan kasoo jeeda aan oran karo puntland oo dhan kasoo jeeda baa noogu yimi dhalinyaradii deegaanka ahayd oo dhan baa ciidamo noqotay fursad fiican bay marka noqotay inaanu ciidamadii tababaro inaanu agab ciidan oo fiican aanu helno inay ganacsatadiina taageeraan inay jaaliyadihii dibadda jirayna taageeraan maantay waxaanu gaarnay alxamdulilah ciidan awood ahaan u dhigna ciidanka puntland inaanu isu keenno agab haddaysan ka wanaagsanayn puntland tay haysato ama u dhigna inaanu isu keenno kalsooni inaanu shacabkii ka kasbano dagaaladii aanu gallay waxaa kamid aha dagaaladii aanu al-shabaab kaga saaray gobolka bari
gobolka bari mudday al-shabaab joogeen hadeer intii anigu aan shaqada ka tegey kadib bay gobolka dhinacan usoo gudbeen hadeer ma garanaysaa gudoomiye waan usoo laabanaynaa kadibna waxaan kuulay inaanu ka saaro oo deegaankii o dhan aanu ka safayno ciidankiina weli sidooday u joogaan waxa weye wax dhibaato ah oo ay geysteen ma jiraan dadka shacabkana ma waxyeelayn systemka iyo xukuumadda jirana ma aysan waxyeelayn weli waxaanu ku taagannahay meeshii aanu joognay oo ahaa in puntland saxitaan bay u baahan tahay in la soxo oo cadaaladda dib loogu noqdo waa hagaag gudoomiye aad baad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer heshay qaabkii mucaaradnimadaada iyo taageerada faraha badan le gobolada bariga kasoo jeeda inta badan aad ku heshay dadka qaarkii su-aal kale ayaa inta badan timaada meesha oo la isweydiinayo oo ah waxaa jira saraakiil kula mida adiga sida marka laga soo qaado kale corneelkii la odhan jiray muxidiin dawladda puntland ama maamulka puntland ka carooday ee duleedka magaalada garowe tegay soo lama odhan karayo culays badan adigu dawladda puntland kuma haysid markii muxidiin isagoo carooday oo 4 baabuur isagoo ciidan yar weliba wata oon ciidankaaga u dhigmin markiiba loo tegay dawladda federaalka iyo cumar cabdirashiid iyo dadku ay meesha uga wadeen soo lama odhan karo culays fara badanba kuma haysid dawladda puntland aad ba umahadsan tahay su-aashaas jawaabteeda waa jawaab aan malaynayo cid walba inay maanta dareemi karto maskaxdeeda ay keeni karto aniga iyo muxidiin waxaanu ku kala duwanayn muxidiin wuxuu ahaa sarkaal xil hayay oo shaqaynayay oo shaqadii laga joojiyo xilkii laga qaaday islamarkaana agabka uu haystay iyo qalabka uu haystay iyo ciidanka la joogo waxay ahayn ciidan dawladda u qaramaysan qalabkuna waxay ahayn qalabkii dawladda gaadiidka iyo qalabka uu haystay qalabkii dawladda ahayn isaguna wuxuu ahaa sarkaal xil hayay taasaan horta ku kala duwannahay haddii xilka laga qaaday oo ay dhacday in xilka laga qaaday oo uu gadooday waxa uu bilaabay muxidiin inuu isbaaro laamiga dhigto inay halkaa markaa ay dhibaata ka timaado wadadii kala xirmato inay dawladdu ciidan ku saarto ciidan marka ay ku saartayna uu banaanka u baxo oo ciidan ka xoog badan lagu saarayo xoogaa la durkiyey oo dhulkii laga durkiyey halkaa inay isku hor fadhiisteen taasaa markaa waxaa ka dhalatay inay kacaan dadkii deegaanka ahaa oo ay yidhahdaan colaadaas iyo dhiigga in la baajiyo oo la kala dhex galo ninkaas sarkaalka ah oo gadooday iyo systemka oo markaa xoog badan iyo ciidan fara badan ku saaray saasay ku timi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo marka laga yimaado ra-isul wasaaraha soomaaliya isagoo ah haddana ah nin kasoo jeeda deegaanka kan wuxuu u helay fursad isagoo puntland joogay isaga iyo ninka la yidhaahdo axmed madoobe inay arrintaa dhexdhexaadiyaan oo ay dhex galaan oo ay isu soo jeedaan labadii ninuu ishayay cabdiweli iyo muxidiin iskuna dayan khilaafkii halkaa ku jiray inay ka saaraan anagu marka waxaanu kaga duwannahay muxidiin wuxuu ahaa khilaafkiisu khilaaf shaksi ah oo waxa uu tabanayay wuxuu ahaa lacag baa iga maqan xuquuq baa iga maqan xilka layga qaaday xaq looguma laha in layga qaado arrimo shaksiya oo private uu ka hadlayay lakin annaga waxaanu kaga duwannahay waxaanu ka hadlaynaa war puntland cadaalad daraa ka jirta puntland dulmi baa ka jira cabdiweli aniga inaanu wada hadallo oo labada iyada aanu ama telefoon ku wada hadallo ama isu nimaano waa wax aada u sahlan oo dhici karta oo qof iyo laba xitaa ay na dhexdhexaadin karaan ay suuro gelin karaan laakin hawsha intaa waa ay ka weyn tahay jidgooyana anagu maanaan samaysan hub dawladdu leedahayna maanaan haysan ciidan dawladda u qaramaysanna maanaan haysan waa maadsantahay kawada waraysaan walba faraha bulshada ku kulaas oo dhan sawiradooda saaran awoodda iyo tayada iyo qalabka iyo ragga aanu hayno ay lahaayeen saasoy tahay haddana marna iskuma aanaan dayin systemka jira inaanu burburino maxaa yeele waxa kan muddaa la tabcayay muddaa la dhisayay muddaa la isu keenayay khaladaadku way noo muuqdaan laakiin dawladnimadii oo dhan in la waayo annagu aanu sabab u noqono diyaarumaanaan ahayn cid allaale ciddii isku dayda inaynu soo caadisana waxaanu diyaaru ahayn inaanu iska caadino marka waxaan rabaa in ay la dareento idinkaan su-aashay ku celinaya dawladdu xukuumadda cabdiweli waxaa loo xil saaray oo ay mandate u haysataa inay ka taliso puntland goboladeeda oo dhan iyo deegaanadeeda oo dhan gobolkii ugu ballaaraa ugu khayraadka badnaa cashuurta ugu badan ay kasoo baxaysay deegaanka ugu ballaaran ku fadhiya ugu istaraatiijisanaa waa gobolka aan joogo iska dhaaf dhulka aanu joogno oo reserve areaha iska dhaafay laamiga intii aanu anagu halkaa joogno cabdiweli ma marin waxaad dareemi kartaa culayska iyo miisaanka jira cabdiweli boosaaso mar buu yimi waxa uu ku yimi diyaarad waxa uu kaga noqday diyaarad inta gobolka bari ay ka taliso
maanta annagaa gacanta ku hayna magaalada boosaaso inaanu tagnana waxa ay noo tahay wax aada u sahlan laakiin waxaanu ilaalinaynaa weli waxaanu xeerinaynaa warbal gacantiina yaysan ku burburin waxaad samaynaysaan waa intaasoo xal la helaa inta xal laga helayo ama laga quusanayo dhawra oo ma garanaysaa dib u dhiga taas kala duwan aad ba umahadsantahay cafwan kama aysan marnayn cumar cabdirashiid ra-isul wasaaruhu inuu ila soo hadlay inuu wala soo noqonaya su-aasha adoo raalliya waxaa jira gudoomiye su-aalaha kale dadku inta badan ay isweydiiyaan marka la eego awoodaada military waxaad wadataa baabuur aada fara badan sida lagu arko baraha ay bulshada ku kulato sida aad carabaartay ciidan aada u fara badan oo isku dirays leh oo isku dhaqan leh baabuur technica oo isku wada color ah dhaqaalo fara badan baa markaa dadku sheegaan inay dowladda federaalka soomaaliya ay kuga caawiso qaarkoodna ay sheegaan bay dhinaca etoobiya soo qaado arrintaa marka loo eego ciidamada adigu aad gacanta ku haysaad u talinaysid raashin fara badan kaa sugaya waxaa kaa sugaya waa ciidan diyaarsan qaab military ama qaab maamul marka loo eego marka la barbar dhigo ciidamada puntland oo inta badan ka cawda mushaar la-aan haddii aad aragto qaabka baabuurtooda u kala duwan yihiin oo qaab beeleed u dhisan haddaad aragto dareyska ciidamadooda xidhan yihiin oo aad moodo inaan wax qaab military aana u dhisnayn marka awooddaas oo dhamaysa dhaqaalaha ay dowladda federaalku siisa maaha iyo etoobiya aad ba umahadsan tahay waa run dad badan oo makasa ama maangaaba su-aalahaas waxaa laga yaabaa inay tafsiirkaa khaldan inay qaataan oo markiiba ay la boodaan markay arkaan sida aad tilmaantay ciidanka kan tayadooda iyo tiradooda iyo agabka ay haystaan markay arkaan inay tafsiirka ay qaadanayaan tahay xukuumaddii jirtay iyo systemkii jiray baa awoodi kari waayey niman jabhad ah muddada yaroo intaa la egseebay arrintaasi ugu suura gashay waa sax waa wax la isweydiin karo arrintaa waxaan uga jawaabeynaa ummaddu hadday isku tashato waxaan rabaa inaa ila dareentaan hadday ummaddu isku tashato wax walba waa ay awoodi karaan gobolkan aanu degannahay oo aanu hadeer joognaa waa gobol khayraad fara badan ay yaalaan waxaad la socotaan waa gobolka ugu faraha badan oo khayraadka badda kasoo baxa soomaaliya oo dhan marka la isu geeyo khayraadka badda gobolka ugu badan oo uu ka yimaado waa gobolkan maydiga iyo fooxana gobolka ugu faraha badan uu ka yimaado oo gobolka kan inta kale waxay la wadaagtaa dadka kale iyo deegaanada kale soomaalida xoolaha nool iyo beeraha iyo kuwa kale la wadaagtaa waxaan rabaa marka tusaale yar inaan idin siiyo idinku bal waxaad qiimaysaan masalan tusaalaha ugu yaraan raba inaan idin siiyo raashinka ciidanku uu isticmaali karo oo ciidanka intaa lagu isticmaalayo waxaa ka sheekaysaan ka warrama hadduu raashinka intaa la eg ay isu qoondeeyeen oo ay qaateen inay ciidanka inta ay jiri doonaan ama ay jirayaan ay iyagu ay geeyaan oo gawaaridooda ku raraan oo bakhaaradooda ka raraan oo ciidanka u geeyaan ganacsato reer puntland waxaan rabaa inay la fahamtaan ganacsato reer puntland oo tiro aada u fara badana baa qorshe samaystay guddiyo samaystay iyagaa waxay sameeyaan baahida raashinka ciidankaasi uu cuno oo weliba raashin aada u quality sarreeya oo raashin xaafadaha kuwa laga cuno ka sarreeya ah inay iyagu keenaan xoolaha nool oo ay ciidanku cunaan reer miyiga deegaanada aanu joogno joogabaa qoondaysta oo iyagaa keena markaanu dhowr casho joognaba waxaa yimaada gaari waaraada ama iska roga ah oo ay saaran yihiin ama tiro ariya ama 2 tiro ariya ama waxaa yimaada waxaa laga yaabaa 12 ama 20 tulid oo geela niman wada inay keenaan waxaas xoolana ma siino dana gaarna kama lihin wadada iyagu isxilqaamay khudaarta aanu isticmaalno gabdhaha beeralayda ah ee deegaanka puntland degan gaar ahaan gobolkan oo kale beeraha ku yaala gabdhaha haysta iyagaa qoondaystay waxaa laga yaabaa wiig walba gudoomiye waktigan ka faa'iidaysanayna gudoomiye adoo raalli waktigan ka faa'iidaysanayna xiriirka federaalka iyo Ethiopia adoo soo noqonaya waxay raalliga ahaw jaaliyadaha dibadda jooga oo tiro aada u badan oo aan awal urursanayn oo aan organized ahayna waxaanu ku guulaysanay inaanu ururino guddiyo u samayno qaaraan joogto ah oo bilo ah inay iska ururiyaan qaaraankaana ay kaga qayb qaataan ciidankan iyo jabhadatan taageeradeeda ay kaga qayb qaataan marka waxaan aaminsanahay awoodaha markii la kulmiyey oo la isu geeyey iyagaa waxay ka bateen federaalkan iyo etoobiyadana ka sheekeynayso hadday annaga waxna siin lahaayeen ama ay cid wax siinayaan waxa ay siin karaan waa mar bay wax siin karaan laakiin jaaliyadaha kan iyo xoogga kan gudaha jooga oo la mideeyey waxaanu ku guulaysanay inay noqoto waxa aanu u baahan nahay wax ka badan inay bixin karaan aadna umahadsantahay
waxaad leedahay marka dowladda federaalka Ethiopia wax xiriir oo naga dhexeeya ma jiraan adigoo caddeynaya hadalka taageera gudbisay wax taageera xiriir uu jira xiriir cid walbaanu la leenahay Ethiopiaanu la leenahay federaalkaanu la leenahay danayaasha Soomaaliyaanu la leenahay laakiin taageeranu ka hadlayno wax taageera kama helo wahagaag waxaan soo noqonaynaa waxa jiray dhowr jeer ay jaaliyadaadu xitaa qaarkood aad moodaa inay ka yara biyo diideen heshiisyada aad la gelayseen Cabdiweli Cali Gaas weliba idin dhexdhexaadinayay ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid arrintaas xagee ku dambeysay ma arrin aad idinku qarsateen oo gaar ah qoladiina kacdoonka badbaadada Puntland wada mise waa arrimo wixii aad ka wada hadasheen aad jaaliyada adiga ku taageersan aad kala qayb qaadatay sidee xaalku xagu maraya hadda aad u mahadsan tahay annaga mar walba mabda iyagu waxa uu ahaa oo annaga noo ahaa ma garanaysaa meesha aanu ka duulayna waxa uu noo ahaa Puntland hadeer waa system jira iyo dawlad dhisan wax badan oo wanaaga lagu gaaray inaanu wanaaga sii kordhino oo systemka sii adkayno oo nidaamka iyo dawladnimada aanu adkayno mooye inaanan annaga aanan sabab u noqon Puntland inaan ama wiiqno ama inaanu dawladnimadii gacantayada in lagu waayo horta taas anaga mabda noo ahay wadahadalka xukuumadda Cabdiweli oo uu Cumar Cabdirashiid arbitrationka ka ahaa way socdaan weli wax saldhigtay oo dhamaaday ma aha stage soo martay meel fiican bay hadeer joogtaa laakiin ma oran karo waxay ku dhamaanaysaa sidii la rabay ama way fashilmaysaa ma raba inaan ka hor dhaco wadahadalladu way socdaan stagekii koowaad bay soo dhaafeen kii labaad bay soo dhaafeen wuxuun isfahanaa jira waxaanuna anagu mar walbana aanu ku talagelaynaa hadday timaado xitaa inaanu tanaasulno oo wax badan aanu annaga xagga iyaga aanu ka tanaasulno waxaanu ku tanaasulaynaa waxay noqonaysaa inaanu ilaalino midnimada dadka kan inaanu ilaalino dawladnimada la haysto inaanan cadowga anagu aanan sabab u noqon inaanu u baylihino jaanisyadii ay raadinayeen waxaanu rabnaa inaanu midnimadaana ilaalino dawladnimadana xoojino wixii dadku ay tabanayeen haddaan la wada helin in intiisa badan la helo maamaa carabiya waxay ahayd laa yutraku kulluhu laa yutraku julluhu maa laa yutraku kulluhu marka taasaanu ku duulaynaa waxa ugu badan oo la heli karo oo wanaaga oo maqnaa oo xuquuq maqan iyo cadaalad darro maqnayd haddaanu inta la heli karo aanu keenno qayb ka midana ay suuroobi weydo maanta inay hirgasho waxaanu rabnaa inaanu ku bedelano midnimada iyo isku haynta dadka sidee baad ugu bedelanaysaan haddii waxaanaad u dagaalamaysaan aad ciidanka iyo dhaqaalaha iyo lacag badan timaado haddii aan waxbaba idaba joogidin odhan maxaad ku bedelanaysaa markaasoo inaad dagaal qaadid maaha ood gobolada bari aad u gacan ku qabatid annaga hadeer gobolka bari waxaan oran karaa gacantayadu ku jiraa gobolka bari xilligan hadeer la joogo jabhaddu 10 bilood bay hadeer jirtaa 10kaa bilood oo jabhaddu jirtay gobolka bari maamul xukuumadda Cabdiweli uu tago waxaa ka jirtay magaalada Boosaaso inta kale annagaa joogna gobolku 6 degmo ka kooban yahay 5 degmo kale annagaa joogna magaalada Boosaaso oo iyadana magaalo ma garanaysaa xeeb ah oo magaalo ganacsi ah oo aanu ka gaabsanay in isku dhac uu yimaado oo ganacsigii uu burburo oo systemkii uu burburo aanu uga gaabsanin oo inta kale annagaa joogna waxaan marka oranayaa midnimadaanu ilaalinayna waxay tahay Puntland waxba aanu anagu tabanaynaa waxaanu tabanaynaa sistamyadii isbedbedelay oo soo maray awood qaybsiga siyaasadeed qaabkay wax u dhigeen waxbaanu ka tabanaynaa cadaalad darro badan oo gaamurtayna waxbaanu ka tabanaynaa horumar la-aan badan oo jirana waxbaanu ka tabanaynaa anagu marka sixitaan baan rabnaa ee burbur ma rabno waa awoodi karnaa maanta bari maaha inaanu Puntland gacanta ku qabanaanu awoodi karnaa laakiin waxaa ka dhalan kara isku dhac baa ka iman kara waxaa ka dhalan kara dadku inay beela u kala fadhiistaan oo nin walba tuuladiisa iyo magaaladiisa uu yidhaahdo anaa ka talinayo system gaara u samaysto waxaasoo dhan baa ka dhalan kara waxaanu rabnaa wixii la raadinayay hadduu 100 ahaa haddii la helo 75% 50+ haddii la helo wixii la raadinayay oo saxitaana oo cadaalada oo horumara haddii aanu sabab u noqono 50+ waxaanu rabnaa inaanu tanaasulno inta dhiman waa mahadsan tahay guddoomiye rajaynta lag baad ka qabtaa adoo aada soo gaabinaya in maamulka Cabdiweli Cali Gaas iyo kooxihiina badbaadada Puntland ama kacdoonka Puntland aad guddoomiyaha u tahay in heshiiskuna la gaaro rajaynta lag baad ka qabtaa heshiiyaan miyaa tiri inay heshiisaan okay dowladda Puntland su-aasha wax badan kama foga su-aasha hore ii weydiisay
annagu haddeer haddaanu shuruudaha iyagii iyo qorshaha iyagii aanu ku adkaysano way adkaanaysaa inaanu heshiino shuruudaha iyaga haddaanu ku adkaysano oo aanu nidhaahno qodob walba kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa haddaan la qaban idinla heshiin mayno way adkaanaysaa heshiiskaas waxaana suuragala inuu hirgeli kari waayo laakiin waxaanu rabnaa hadday suuragal noqonayso sida aan haddeer ka hadlayay inaanu heshiis qaadano waa hadday suuragal noqon karto inaanu heshiis qaadano wixii dhinaa oo dadku raadinayeen intiisii badnaa haddii la helayo haddii la waayo marka heshiis ma imanayo haddii la waayo fifty balas waxay dadku tabanayeen fifty balas haddii la waayo heshiis ma imanayo waxaanuna ku qasbannahay rabitaanka shacabka inaanu ku shaqayno annagoo wax badan xerinayna haddana inaanu rabitaankooda aanu ku shaqayno oo ku qasbanaanayna aad baad guddoomiye umaadsantahay waxaan jeclahay inaan laba su-aalood oo aada u kooban inaan kuweydiiyana waktiga ka faaidaysanana waktigaaga qaaligana mar labaad kugu mahadnaqayna barnaamijkana si toosa wuxuu idinka imanaya waa madasha 60 oo ah golaha ay siyaasadda soomaalida inta badan lagu falanqeeyo lagula soo dhaweeyo siyaasiyiinta soomaalida barnaamijkan waxaa marti iigu ah caawa guddoomiyihii hore ee gobolka bari ahna guddoomiyaha mucaaradka puntland mudane cabdisamed maxamed galan su-aashaan jecel inaan kuweydiiyo adigu baa igu soo gaabinaya xildhibaanadan hadda la dooranayo ee dowladda federaalka tegaya iyo aqalka sare si cadaalada ma u dhacaysaa bay kula tahay haddii ay dhacdana xaggiina cadaalad daradii aada ula tirsanayseen waxna ka muuqdaan aad ba umahadsan tahay horta way kala duwan yihiin aqalka sare waxaa gacanta loo geliyey oo gacanta ku haya madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ama isteediyada laakiin aqalka hoose waxaa dib loogu soo celiyay dadkii shacabka marka tan aqalka hoose iyada waxaan oran karaa sidii ugu quruxda badnayd oo la samayn karay bay ku socotaa in 51 qof oo bulshada qaybaheeda kala duwana ay soo xulaan qofka noqonaya xildhibaanka aqalka hoose arrintaa waxaan oran karaa waa arrin cadaaladda wax badan u dhow lama gaarin one man one vote lama gaarin laakiin waa iyadii oo la yareeyey waa dad codsidayaala oo mateli kara oo xaamilu sawd ah oo mateli kara bulshadii gabdhihii baa maraya ganacsadii baa maraysa culamadii baa maraya wadoonkii baa maray 51 qof isku dhafa taa waxaan oran karaa sidii ugu quruxda badnayd bay u socotaa tan aqalka sare oo golaha sanadka iyo senatarada maadaama maamul goboleedyada gacanta loo geliyay madaxweyneyaashooda waxaan aaminsanahay way kasoo noqonaysaa cadaalad darrana way kasoo noqonaysaa khaladaadna wuu kasoo noqonaya maadaama ay ku tagrifalayaan qof gacanta loo geliyay oo aysan ahayn awood laga tashanayo oo baahsan oo magaranaysa bulshadii taladeedii dib loogu celiyay aysan ahayn cadaalad darro way ka imanaysaa baan qabaa taana intaasan ka hay waxaa jira guddoomiye asaaskii puntland waa su-aal aada u gaaban oo jeclay adiguna inaad iisoo gaabisid puntland qaabkii loo asaasay waxay ahayd in maadaama dowladdii dhexe ee soomaaliya ay meesha ka baxday lagaga badbaado dhibaatooyinka ka dhalan karaya dadka kala wada ujeedooyinka ah ee dhulka isugu imanaya qaabka loo dhisay puntland qaabkaas oo ahaa waxaana isugu tegay beelo walaala ah oo deegaanka wada dega haddii aan carabka si toosa kugu dhufto maamulka beesha la yidhaha reer khaatimo ama maamulka khaatimo la magac baxay sidoo kalena beesha iyaguna gobolada bari ee adu hadda sheeganayso gaar ahaan qaarkood kula dega oo iyaguna la baxay dowlad goboleed ay samaysteen oo loogu magac daray waqooyi bari inna wax xiriir ma leedihiin haddaad xiriir wada leedihiin xiriirkeena xaguu maraya haddaydaan wada lahayna mustaqbalkiina siyaasadeed muxuu noqonayaa aad baa umahadsan tahay horta anagu cid walba oo soomaaliyeed xiriir waa la leenahay dhammaan qaybaha kala duwan ee soomaalida xiriir waanu leenahay waxaana laga yaabaa mararka qaarkood dana badan inayna kala galaan oo aanu u baahano xogo badan inaanu isweydaarsano laakiin wuu kala duwan yahay xiriir in la samaysto iyo in la wada shaqeeyo laba macnay kala leedahay xiriir soomaalida oo dhan waanu la leenahay cid kasta oo puntland deegaan ahaan ama isir ahaan ama system ahaan ka tirsanayd ama hadda ka tirsanna waa la leenahay laakiin wada shaqayn hadeer cid aanu la leenahay oo jabhadaha ka sanqarisaya ma jiraan wahagaag waxaan usoo qabanaynaa su-aasha aan jeclay inaan dadku iyaguna laftooda ilaa todobaadyada lasoo dhaafay la isweydiinayo dagaal baa ka socda gobolka mudug dagaalkaa dadka qaarkii waxay ugu yeedhaan waa dagaal beeleed dagaal udhexeeya laba beelood oo walaala ah oo wada dega gobolka mudug waqooyiga iyo koonfurta dadka qaarkiina waxa u yeedhaan waa dagaal udhexeeya maamulka puntland iyo maamulka galmudug si kastaba ha loo dhigo laakiin dadka carabka sida miidiyaha ama saxaafadda soomaaliyeed laga arkayo waa dagaal udhexeeya labada dad ee wada dega deegaanka magaalada gaalkacyo dadka qaarkood waxay sheegeen in ciidamadooda dagaalkaa ka qayb galeen arrintaas sideed u aragta adigu
ومحسن تهي أرنتها سؤالها سأبا نلو ويديني صدح مالين كهر بان ملايين وحن كهر لي إذا عدى السنبة أنا عديني أو ضد أو taas loo khalday oo qaytood laga dhaadhiciyay ciidamadii galan iyo jabhadiiba waxay ka qayb galeen dagaalada inaan halkaa ku cadaynay hadeerna fursad fiican bay noo tahay waxaan rabnaa inaan arrintaa cadayno aragtida aan horta ka qabnaa waxa ay tahay Soomaali waxa weeye maanta waxay u baahan tahay in la isu geeyo la isu ururiyo in la kala kaxeeyo uma baahna xabad la rido iyo rasaas la ridona Soomaali laguma midayn karo beel maanta beel kala caburin karta oo awood kuma quurin kartaana ma jirto reer maanta deegaan ay deganaayeen inta laga raro reer kale u degi karaana ma jirto horta arrimahaas oo dhan khibrad badan baa laga yeeshay oo la isku baaba'ay Soomaalina si fiican bay isu baratay maanta waxaa la rabaa in Soomaali la isu ururiyo caalamkii oo dhan taasi caalamkii daadsan yihiin gabdhoodii baa in la waran dadkoodii maatada baa in la waran maanta uma baahna qaxid kale oo Soomaali la qaxiyo uma baahna taa waxaan waa cambaaraynayna dagaalka halka ka socda beelaha walaalaha oo wada degan oo qarni ka qarni deganaana doona haduu ilaahay idin waxaan rabnaa inuu aqliga saxan shaqeeyo dagaal kasta oo idin dhexmara ama beelahaan ha laydin ku soo gurmado ama maamul ahaan ha laydin ku soo gurmado dhibaatadu waxa ay oolaysaa waa guryihiina khasaaraduna idinka ku dhacaysa ninka idin soo gurmado haduu beel idin ku soo gurmado haduu siisan idin ku soo gurmadayo dib uu noqonaya laakiin dhibaatada waxa ay oolaysaa waa dadkiina walaalaha ah isu artiga ah xididka isu ah dhinac walba aan ma garanaysa aan ku kala tegi karin weeye waxaan oranayaa caqliga saliimka ee maskaxda saxani ha shaqayso dadka walaalaha ahna waxaan leenahay ilaahay laaftooda burcad ha isu mariyo intii ku dhimatayna allah u naxariistaanu leenahay inta dhaawactayna allah caaf dib dambena yaysan khasaaro dambe iyo dhibaato dambe halkaas yaysan ka dhicin baanu leenahay mana aaminsanin arrintaas in la sii buunbuuniyo in la gurmado oo dhinacyada laga gurmado dadka been loo sheego la yiraahdo 91 bay ku noqotay Soomaaliya waxa sameynaysa wixii koonfur xagga jirana magac beeleeda ku soo gurmaday wixii waqooyi bari xagga soo jirana magac beeleeda ku soo gurmaday arta oo marin habaabin Soomaali dib uma noqonayso development iyo horumar baa la rabaa hadeer in emergency iyo xaalado degdeg iyo dhibaato dib loogu celiyo Soomaali ma rabno cid isu gurmanaysa oo maanta qabiil isugu gurmanaysaana ma jirto annagu waa laga yaabaa annagoo odayaala haddaanu gaalkacyo tegayna waxaanu tegaynaa annagoo odayaala oo waxgaraba oo dadka dhexdhexaadinayna waa laga yaabaa laakiin absolutely inay dhacdo annagoo ciidana oo qoryo wadana oo beelaha Soomaaliyeed kamida duulaan ku ah inaanu tagno gaalkacyo inaanu tagno dhahar inaanu tagno baran inaanu tagno meelo kale xuduuda inaanu tagno ma dhacayso horena uma dhicin hadeerna uma dhacayso because waxaanuba u abuuranay inaanu cadaalad raadino inaanu dulmiga ka hortagno inaanu colaad gaamurtay dadka la dhex dhigay inaanu soo afjiro baanuba u sameysanahay aadna oo mahadsantiin waa hagaag aad baad u mahadsantahay gudoomiye galan waa hagaag dhageystayaal barnaamijkan waxa igala qayb galay ama wareysiga dheer ee xasaasiga meelo dhinacyo fara badan taabanaya aanu la yeelanay gudoomiyihii hore ee gobolka bari hadeerna ah gudoomiyaha mucaaridka ama ururka la magac baxay badbaadada Puntland oo hogaaminayo gudoomiye Cabdisamed Maxamed Galan waxaadna ka dhageysanaysaa madasha 60ka barnaamijkana waxaa si fudud noogu fududeeyay waliba aad noogu soo dhaweeyay in aanu wareysigan ka qaadno waa gudoomiyaha madasha Asadna iyo Blacky sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa afayeenka jaaliyada gobolada bari Fikriye Ali Xaaji Saciid dhamaantiin waa anigoo Cabdi waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka gudoomiyaha aad baad mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum